Komishanka doorashooyinka Somaliland ayaa soo xiray goobihii diiwaangelinta ee gobolka Saaxil taasi oo muddo 4 cisho ka socotay. Xubin ka mid ah guddiga Komishanka doorashooyinka Somaliland ayaa ka warbixiyay goobaha la soo xiray. Sidoo kalena waxa uu halkaasi ka sheegay goobo cusub oo lagu kordhiyay isla markaana loogu daray maalmo dheeriya iyo sidoo kale tiiman ka shaqeyn doona arrimaha cilada oo wareegi doona gobolka Saaxil qaybo ka mid ah. Waxa xalay soo gabagabay diiwaangelintii gobolka Saaxil oo ka socotay degmada Sheekh iyo degmada Berbera waxay ka koobnaan 9 goobood oo ay ka hawlgaleen shaqaale dhan 400 iyo gaadiid dhan 140 gaadiid ah. waxa kale oo ka qayb galay ciidamada qalabka sida, waxa kale oo ka qayb galay xisbiyada madaxda dawladda iyo komishanka hogaaminaya hawshaas iyada. Ilaahay si guul ayuu noogu soo dhameeyay. Xalay ayay noo soo wada xiradeen dhamaantood goobihiina waxa ku dhamaadeen si nabadgelyo ah. maadaama culis badan ka jiray gobolka Saaxil waxaanu garanay inaanu goobaha qaar kordhino muddo kooban. goobaha aanu kordhinay waxaanu u kala baxayaan 2 qaybood. qayb hadhaa ah oo aanu ku reebnay 6 tiim oo wareegi doona guud ahaan gobolka Saaxil meelihii culis ka jiray. waxa kale oo jira goobo iyaguna ah 5 oo la kordhiyay muddo 3 casho ah oo ku xiriirsan 4 casho hore deegaanka ay socotay diiwaangelintu. goobaha la kordhiyay waxa ka mid ah 3 goobood oo gudaha magaalada Berbera ah iyo 2 goobood oo midna ku taalo wadada Burca tagta ee Berbera ka baxda, midna ku taalo wadada Berbera ka baxda ee tagta magaalada Hargeysa. degmada aan ka kordhinay dhinaca wadada u baxda dhinaca Sheekh waa Laaleys. waxaanu ku daray 3 maalmood oo ku xidhsami doona 4 casho ee hore waxayna bilaabi doontaa isla maalinta ku xigta. suugeyntoodana waxay noqon doontaa 7 casho. goobta kale ee dibadda aan kordhinay waa Sheekh Abdaal oo aan ku daray 3 casho oo ku xiriirsan 4tii hore. iyaduna waxay bilaabi doontaa isla xiriir ku noqon doontaa 4tii casho ee hore 7 casho inay suugeyn ay noqon doontaa. waxa kale oo iyana la sameeyay 6 tiim oo wareegaya guud ahaan gobolka Saaxil meelihii culayska badan ka jiray. tiimka koowaad waxa uu ku egyahay magaalada Berbera waxaana uu joogayaa 7 casho waxaana uu bilaabayaa shaqadiisa 18 bisha waxaana uu soo gabagaboobaya 24 bisha December. waxaana uu joogayaa 7 casho goobta Daaroole oo ka tirsan gudaha magaalada Berbera. tiimka labaad isna magaalada Berbera gudaheeda ayuu joogayaa 7 casho ayuu shaqeynayaa. shaqadana wuxuu bilaabayaa 18 bisha wuxuuna soo gabagabeynayaa 24 bisha December. waxaana uu 7 casho joogayaa degmada Burca Sheekh oo ka tirsan gudaha magaalada Berbera. tiimka saddexaad isna waxa uu wareegi doonaa banaanka magaalada Berbera iyo Sheekh. waxaana uu ka bilaabi doonaa tiimka saddexaad shaqadiisa tuulada Geelokor oo uu joogi doono 3 casho oo ah 18 19 iyo 20 bisha. waxa uu uga sii gudbi doonaa 3 casho oo kale. waxa uu uga sii gudbi doonaa 4 casho oo ka bilaabi doona degmada Sheekh goobta Sheekh Abdaal oo ka bilaabi doona 22 22 23 December. 3 casho wuxuu joogayaa Geelokor, 4 cashana wuxuu joogayaa Sheekh Abdaal. waa tiimka saddexaad. tiimka afraad wuxuu joogayaa 3 maalmood Mandheera, degmada Mandheera oo 18 19 iyo 20. waxa uu uga sii gudbayaa goobta biyo fadhiisinka oo uu joogi doono 22 22. waxa uu uga sii gudbayaa degmada Bulxaar oo uu joogi doono 23 iyo 24 bisha. tiimka shanaad waxa uu isna ka hawlgalayaa bariga magaalada Berbera oo ka bilaabi doono deegaanka Lees Ciidle oo uu joogi doono 2 maalmood oo 18 iyo 19 bisha. waxa uga sii gudbi doonaa deegaanka Beeyada Dheer oo uu joogi doono 20 22 iyo 22 bisha. waxa uu halka uga sii gudbi doonaa 23 bisha oo shaqada ka bilaabi doona deegaanka Qaraadh oo uu joogi doono 23 iyo 24. tiimka lixaad waxa uu 18 bisha ka hawlgali doonaa degmada Go'da Weyn oo uu joogi doono 18 iyo 19. waxa uu uga sii gudbayaa deegaanka Suuqsade oo uu joogi doono 20 iyo 21. waxa uu uga sii gudbayaa halkaas degmada Sheekh oo ah goobtii Sheekh B ee 3 casho hore lagu kordhiyay oo uu joogi doono 22 23 iyo 24. sida ayay ku soo gabagaboobi doontaan degaankii kordhiska ahaa iyo degaankii hadhaaga ahaa ee lagu reebay deegaanka gobolka Saaxil.
waxaan dadweynaha gobolka saaxil ugu baaqayaa inay ka faa'iidaystaan muddada loo kordhiyey oo ay tagaan goobaha loo cayimay haddii deegaanka uu ka fog yahay run ahaantii waxaan ku boorinayaa in deegaanka ugu dhow sanduuqu yaallo ay tagaan si ay isugu diiwaan geliyaan annagu waxaan ku salaynay sanduuqan markaanu dhigaynay goobaha dheeraadka ah sidii markii hore diiwaangelinta looga galay iyo sidii degmooyinku ay u aastaysnaayeen waxaan ku boorinayaa dadku inay ka faa'iidaystaan muddada loo kordhiyey $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Somaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees tayo waa Telesom ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarino cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu tala gashay waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab microwave TV-yo iyo moobilo dhammaan shirkadda Samsung ah account lacag ku jirto oo banka dahabshiil ah dalxiis aad ku degto hoteelada Damal iyo waliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000 intaas iyo xidhmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah ka qaybgal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111